السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داودي الهركة وهرونا كوسو دواد وركنا قضبضا إنيسو قدبين دوننا وحكامين نغندون محكمة سرية سوماليلان oo shaacisay war ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya warcabadeed Soomaaliya oo markab laga leeyahay Panama ka afduubtay xeebaha Puntland xogayaha qaramada midoobay oo ka hadlay xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya qodobada kale inuu soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona wasiirka amniga galmudug oo warka soo saaray shirka ka socda Dhuusamareeb iyo go'aanada la gaaray iyo madaxda ka maqan Puntland iyo Jubbaland oo lagu baaqaynay si degdeg ah shirkaasi u tagaan qodobada iyo kuwa kale ayaan idin haynaa u diyaar garoow mar kale warkeena agaagda wadalaan ku bilowno sida dhinaca warkeena baad ku daawateen maxkamadda sare ee Somaliland ayaa war ka soo saartay arrimaha doorashooyinka ee Somaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay dalab madaxweynaha Somaliland dhawaan u gudbiyay oo ku saabsanaa arrinta saamee qaybsiga kuraasta golayaasha baarlamaanka Somaliland waa kan gudoomiyaha maxkamadda sare oo ka hadlay arrimahaasi socno waxa jirta dacwad dastuuriya oo uu soo gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dacwadda nuxurkeedu waxa weeyaan haddaan koobo waxa jirtay xeerka golaha wakiilada lagu soo doorto ee dhaqangalka ah xeerka ilaa iminka dhaqangalka ah ee xeer number 20/205 qodobka 12aad faqradda koowaad ee xeerka doorashada wakiiladaas xeerka dhaqangalka waana xeerka kaliya ee ilaa iminka dhaqangala ayaa wuxuu sheegayaa berigaas doorashadii golaha wakiilada la geliyay in habkii kuraasidu u qaybsantay ee iminka golaha wakiiladu u fadhiyaan in lagu galo doorashadii beriga 2005 marka mar dambana go'aan ay maxkamadda dastuuriga soo saartay ay ka isla macnayihiin baa jira oo waxay soo saartay 26kii bishii labaad 2005 marka kaasi wuxuu dabar ku yahay ilaa maxay ahaydey doorashadaas in lagu galiyay habkaas wixii ka dambeeyay oo doorashada maanta taagan in aan lagu gali karin marka qodobka la fasiraya waa iyo xeerku waa kaas marka wuxuu wadada u saamaxayaa haddii saami dub loo qaybiyo kuraasida golaha wakiiladana wixii la doonaha lagu saleeyay in ay furan tahay haddii laga gaarsiin waayo imika waxa ka soo wareegtay 15 sano in dub loo eego in wax badan lagu saleeyo inaanay doorashadu u dabranaanin ka qodobka tafsiirka ay soo weydiiyay maxkamadda dastuuriga ahi wax weey waa qodobkaasi oo u gogol xaray saami qaybsiga ka hadii si kale loo sheega ah marka kaasay maxkamaddu eegaysaa berigaana xeerkaasina saas uu sheegay in doorashada 2005 oo kaliya ta lagu galo marka si aanay u dabranaanin in la eego maxkamadda dastuurigana berigaa way ayday oo xeerkaasay taageertay iyadoo muran sano kale uu soo galay marka ka haysa wata wax kale oo doorashada la xiriiro oo ay maxkamaddu haysato ma jirto ama uu madaxweynuhu soo gudbiyay oo doorashadu way dhinacay badantay waxyaalo badan bay ka kooban tahay laakiin waa kaas waa qodobka dabraya in habkaas uu beriga hal mar lagu galo wixii ka dambeeyay in la bedelo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xilka qaadistii golaha shacabka Soomaaliya ay ku sameeyeen ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre Antonio Guterres oo soo saaray warbixinta qaramada midoobay xaaladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka walaacsan yahay in xilka qaadistii degdeg ah lagu sameeyay Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya kaasi oo safar ku maqnaa Dhuusamareeb ka gadaal xilka looga qaaday kulan golaha shacabka ku yeesheen Muqdisho waa muhiim in la dhowro heshiisyadii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dowlad goboleedyada ay ka gaareen Dhuusamareeb iyo waqtiga kulamadaasi lagu bixiyay in la ilaaliyo ayuu yiri Antonio Guterres oo ka hadlayay muhiimadda shirka ka socda Dhuusamareeb Antonio Guterres ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay in doorashooyinka Soomaaliya ay noqdaan kuwa ay heshiis ku wada yihiin dowladda dhexe dowlad goboleedyada baarlamaanka xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan saamilada Soomaaliyeed ee arrimaha qaybta ka
hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa dowladda xubnaha ka dowladda dhexe mas-uuliyadda ayaa ka saaran in dalkan ay ku heshiiyaan go-aanada ka soo baxaya arrimaha doorashooyinka islamarkaasna ay isu tanaasulaan ayuu yidhi. waxa uu ugu dambeyntii ugu baaqay in heshiis degdeg ah laga gaaro doorashooyinka baarlamaanka oo ay ugu dhacaan waqtigooda oo ah bil ka hor baarlamaanka muddo xileedkiisa oo iminka ay naga xigsan tahay 1 bil iyo bishan ku guda jirnay December, taasi oo micnaheedu ay tahay in la qabto November. sidoo kale warkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin ka maqnaanshaha shirka Dhuusamareeb, madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagoona lagu baaqay inay si degdeg ah u gaaraan Dhuusamareeb, halkaasi oo ay kaga socdaan shirka u dhaxeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa qaar dowladaha xubnaha ka. hagaag daawadayaal wararkana hagaag ayaa la socotaane. burcadbadeed Soomaaliya ayaa maanta afduubtay markab ganacsi oo marayay xeebaha Soomaaliya kaasi oo sitay calanka dalka Panama sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. markabka la afduubtay ayaa waxa uu ka soo baxay dekedda dalka Imaaraadka Carabta wuxuuna ku soo socday dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha Gardafu oo ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. weerarka ayaa waxaa geystay 6 nin oo hubeysan ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga tirada shaqaalaha saaran markabkan laga lahaa dalka Panama ee gacanta u galay burcadbadeeda Soomaalida. afduubka oo ay geysteen burcadbadeeda Soomaalida ayaa ku soo aadaya xilli Sacuudigu iyo Faransiisku ay kala wareegtay hoggaanka talada ciidanka isku dhafka ah ee badda Soomaaliya uga howlgalaya la dagaalanka burcadbadeeda. taliskan loo yaqaan CTF -150 ayaa sameeya dabagal, kormeer iyo sidoo kale howlgallo caadiya wuxuuna haystaa 14 ilaa 15 maraakiib sida ku cad xogta iyo sidoo kale qaababka howlgalkan 12 sano ee la soo dhaafay ku sugnaa xeebaha Soomaaliya. maadaama dowlado kala duwan ay ka qayb yihiin isbedelada dhanka hoggaanka ah ee ka dhaca 4 ilaa 6 bilba mar, joogitaankooda ugu badan waa gacanta cadan ama gacanka cadan, halkaasoo oo dhaqdhaqaaqo ay ka sameeyaan si ay uga hortagaan falalka lidiga ku ah maraakiibta maraya xeebaha Soomaaliya isla markaasna burcadbadeeda ay uga soo afjaraan. bishii Agoosto sanadkii 2008 ayaa la sameeyay howlgalkan oo gadaal markii dambe ay ku soo kordheen dalalka caalamka qaarkood, iyadoona weerarada iyo sidoo kale qafaalashada maraakiibta xilligaasi ay aad ugu badnayd Soomaaliya. maamulka Puntland oo deegaanadooda laga afduubtay markabkan ayaa ilaa iyo haddaan wax wara ka soo saareen markabkan la afduubtay iyo halka lala aaday. ugu dambeyntiina haddaan ogno wasiirka amniga gudaha Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu ka warbixiyay shirka Dhuusamareeb wajigiisa saddexaad ee ka soconaya magaalada caasimadda Galmudug waa ay Dhuusamareeb. Fiqi qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu sheegay in shirka Dhuusamareeb uu ku soo aaday waqti xasaasi ah isla markaasna ay jirto kalsooni xumo badan oo loo baahan yahay in lala yimaado isu tanaasul si wada tashi looga gaaro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Fiqi ayaa carabka ku dhuftay in maamulka Galmudug uu dhexdhexaad ka yahay dhinacyada ka dhaxeeya shirka Dhuusamareeb 3 balse ay Galmudug kaliya madax bannaan tahay mowqifkeeda ku aadan iyo mowqifka guud ahaanba arrimaha shacabka deegaanada Galmudug. intaasi Fiqi hadalkiisa waxa uu raaciyay in ay tahay xog muhiim ah oo ku aadan in shirka Dhuusamareeb ay guud ahaanba ka soo wada qayb galaan madaxda maamulada dalka, iyaduna la filayo in maalinta Sabtida iyo Jimcada foodan ugu soo haysa ay shirka ka soo qayb noqdaan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. hagaagda wadayaal guud ahaan tisana ku soo gabagabeynaa warkana horaan ka socotay handeedka cusubta channelkan fadlan soo raac kulanka xigantaan isku arki doono waa baad har wanaag oo idin kaga tagaysan nabadgelyo jimco wanaagsan.